waxaa sii kordhaya tirada dadka ay waxyeeladu ka soo gaareen qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. In ka badan 50 ruux ayaa ku dhimatay, 106 ruux oo kale way ku dhaawacmeen. waxaa sidoo kale meedad hor laga helay goobtii ay qaraxyadu ka dhaceen. agaasimaha guud ee isbitaalka Madiina, Dr. Maxamed Yuusuf oo warbaahinta shir jiraa'id u qabtay ayaa ka warbixiyay dhaawacyadii la geeyay isbitaalkaasi kadib qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. haddii aan kala saarno 7 qof baa ku jirtay oo dhaawacooda alxamdulillaah oo sahlanay oo aan intaan dhaymadii waxay u sameynay gurigooda loo diray iyo waxay ahaayeen 25 oo aan admission u subinay. 25 qaar waxa ku jiray dhaawacooda aad iyo aad u culusay, 3 kamid ah xataa saalada qalliinka waa gaarsiin weyn oo dhinteen. marka waxa soo haray 22 oo aan qalliimadii kala duwanay iyo aan u subinay oo adeegooda si fiican u fulinay. haddana 22daas tood 9 kamid ah waxay noqotay dadkii maadaama la dhayay oo la daaweeyay qaar inay dhahaan deegaan fog baan ka imaanay isbitaal ka noo dhow aan seexsanaynaa, haddii wax loo baahdana waa soo celinaynaa sidii aan ku daynay. marka hadda waxaa jiifto adiga 13 mid baa la sheegay laba hadda la keenay oo ayagana isbitaallo kale laga keenay, marka 15 bay noqonayaan. maartay dhaawacyada sidaas ay ahaayeen. dhib badan baa jiro oo waxa waaye dhaawacyadu waa iska daba imaadeen ayagoo noocyo kala duwan ah baryahan dambe, inkastoo qaraxyada waaweyn laga ceentay. waxaan ku rabnay mataqaanaa annaga kulleyba maaragtay isbitaalka uma baahno dadkeena badi annaga ka adagoo daaweynayno. isbitaalka muddo dheer buu ka soo shaqeynaya hawshaanitood, khabiir buu u yahay. adiga wax hadda dibad aan u dirno oo dibadii u baahan yihiin aan dhahno ilaa hadda ma hayno. dhinaca kale agaasimaha isbitaalka Daarushifa, Dr. Maxamed Cabbaas oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in isbitaalkaasi la geeyay 26 qof oo dhaawac ah halka mid kamid ah uu geeriyooday. bismillaahir rahmaanir rahiim. isbitaalka waxaa la soo gaarsiiyay dhaawacyo fara badan kuwaas oo gaaray ilaa iyo 26 bukaan oo qabay dhaawacyo kala duwan kala qabo meelo kala duwan. markii isbitaalka la soo gaarsiiyay waxay heleen gargaarkii ay u baahnaayeen. 14 kamidana way baxeen oo dhaawacyo fudud ay qabeen. inta kale dhaawacyadu waxay isku jireen dad jajab iyo dad ay maxaa la yiraahdaa firitooyin badan ay soo wada gaareen. waa lala tacaalay. intii 14 kaas ka soo hartay isbitaalka ay jiifaan. dhakhaatiirtana waxay noo sheegeen ilaa hadda in xaaladooda ay ka soo reynayso mar walba. tirada aad sheegtay in xaaladooda caafimaad ay wanaagsaneed isbitaalka caafimaad aad u fidiseen oo dib ugu laabteen guryahooda mise gaareen? 14 qof ay ahaayeen. intii xaaladooda ay isdheheynay waa la baxnaaniyo way bixi karaan. runtii ayagana dib ayay u laabteen oo ilaahay mahadiis. inta kalena isbitaalka ay jiifaan. ilaa haddana xaaladiisa qof ay daran tahay oo dhakhaatiirta ay nagu soo wargeliyeen ma jirin. ayagana gacanta kula jiro oo hadda xaaladooda sida ay warbixinta ay nagu soo gaaraysa way fiican tahay. inta liidato weli isbitaalka jiifto oo xaaladooda weli aad la tacaalaysaan imise gaareen? waxaa waaye ilaa iyo 13 qofood ayaa isbitaalka hadda jiifto ayagoo runtii wax liitana kuma jirin. waxay qabeen jajab iyo qabeen. dhakhaatiirtana qaar kale waxay u arkeen inay u baahan yihiin weli in isbitaalka lagu sii hayo oo xaaladooda caafimaad ay u baahan tahay in isbitaalka ku sii jiraan. ayagana dhakhaatiirta kamaynan soo deerinin laakiin xaaladooda ayay gacanta ku hayaan. warbixinadana soo gaarayana way fiican yihiin sidii shalay ay ahayd ma ahanta. shalay galigkii dambe ayay ahayd markii qaraxyo isxigxigay ay ka dhaceen agagaarka isgoyska kilomitir 4 gaar ahaan hoteelka Saxafi iyo xarunta CID-da. Cabdullaahi Gacmo, Som News TV, Muqdisho.